laakiin waxyaaba xunanu qaadan weynay oo gardarooyin qaawana baan ka hadlayaa. waxaan ka hadlayaa nimanka jeegaanta ama Somaliland oran maayo, nimanka la baxay jeegaanland baan ka hadlayaa. gardarooyin xumaanta nagu hayaan dhulkayaga nalama laha. ilaahay qaadir dadka nin walba meel buu dejiyey. dhulkayaga naga iska leh, iyagu nalama wadaagaan, ehel iyaga soo nalama wadaagaan. tolle ma nihin, isku deegaanna ma nihin, isku qabiilla ma nihin, isku dhalashana ma nihin. saa darteed baan dhulkayaga noola lahayn. dhulka dadku waa kala leeyahay, xitaa harti ama daarood baa dhulka kala dego kala leh. jeegaanlaana daaba meel naga soo gashaa ma jiraan. dubka madow diinta islaamka naga dhexaysa, ninkii garanaya dubka madow iyo diinta islaamka unbaa naga dhexey, wax kale nagama dhexeeyaan. haddii xiidnima jirtay, tolnima jirtay, ehel jiray iyagaa diiday oo dadan lahayn sheegtay oo cabudhiyey. mid kale waxaan sheegayaa inaan diin iyo imaantoodna lahayn. waxaan sheegayaa raggu waa isdilaa, maatada lama laayo, lamana cadibo. hadda markay taal waayeen oo xabadaan la dhacay way ku hasadeen, dumarkii carruurtii ku hasadeen oo xidhxidhayaan. salad bay u furteenoo intay dadka xabiyan geeyaan jeelka, qof kalba waxay ku soo daynayaan $100. salad bay u furteen. taana caalamka islaamkaan u sheegaynaa inay waxaa samaynayaanoo raggu waa istilaa, xabaddu isa dhacaa, xumaan baa dhex marta. laakiin maatada iyo dumarka iyo carruurta waa ka xarasantay waxyeeladu. hadda iyagu waa xooggooda iyo taalkooda noqday in carruurtii iyo dumarkii intay ka buuxiyaan jeel $100 sidii xoolihii daabaxa ku iibsadaan. xumaanaha samay ka mid tahay. taa markaa ka imaado, anagu dhulkayaga naga iskale, sool iyo sanaag iyo cayn iyo wayla halmaala annagaa iskale. dhulka hartaba daarood ka hadli maayo, intaan noo dhibaantaan degnaan ka hadlayaa. annagaa iska leh, nalama degaan, nalama laha, naguma qabsan karaan. markii burburku dhacay oo dowladdii dhexe ay burburiyeenoo burburku dhacay, dad iska imaan laawayaal yimaadeen dowlad yihiinoo ay raaceenoo kuwii baa noo soo dhaweyn oo soo geliyey. hayn waaye tii ladnaantii xamili waaye, kuwa iska raacayoo iyaga raacayoo dhuuniqaatayaalahoo imaan laawayaalahoo yidhi dowlad baan ka jirtayoo waa kanoo dadkii beenu sheegadoo dadkii qaldadoo carruurihiiyo maatay dumarkii durbaan u tumadoo been sheegay. beentaa badankeed waxay dhacday anoo dhulka anugu ka maqan oo imaaraadka jira oo caafimaad u tegey, waa kuwa imaan lawayaalihii dadkii u yimaadeen dowlad baanu haynaa, arboos meel ay ku shiriyeen, been bay u sheegeen. cuqaal been oo aan jirin, cuqaal been oo aan jirin, cuqaashigu wax yar weeye. kunoo cuqaal sheeganayo wada beena bay u qoreen. anigu waan maqnaa, dadka waan kicin lahaa oo ku miyuusanaabi lahaa, xabaddaa laga dhici lahaa. maqnaantaydii baa laga faa'iidaystay. kodhuu qaateelo been sheegayo yidhi wakiil baa aan ka ahayna, waa horaan u beeniyo wakiil igama ahayn. waa been. dadka tuugtaahoo raashinka cunaya ka mid ahaayeen. dadka horta maanta la tabtaafay. haddeena waanu qaylnay, yaa tolay baanu nidhi haddii wax kuu yimaadaan nin walba meesha cid ugu dhow ama tol ugu dhow ama egas ugu dhow ama hayb la wadaago buu ku cararaa. yaa daarooday baanu nidhi, yaa hartiyooy baanu nidhi. dadkii way soo kacay, gardarooda qaawanna waa la arkay. mid kale halka aan ku noqdee ibraahin cigaal iyo ninka la yidhaahdo sinaayo oo labadaa nin baana dilay. markay nuga dileen waxay yidhaahdeen dhulbaqante lacagtana siiya, hana la hadlina. taasaa dhulka lagu qabsaday. kan waa mahadsan yahay xumaantii ku jirtay mu soo dedejay. ana waxbu markana taray xumaantii dhowr iyo tobanka soo nala ku haystay oo lahaa u daadi shabakada u daadi, lacagta sii, hala hadlina, tiibuu soo dedejiyey. anigu ninkaa waa ammaanayaa. waxbuuna taray, waxnama yeelin. dadkii uu isku kiciyey, dad uusan lahayn buu sheegtay, been buu isu sheegay. ciidan xoogaa la joogu mooday inuu yahay ciidanka maraykanka, wixii kulli wada been.
hadda waxaan kusoo koobayaa dhulka yaga nalama laha annagaa iska leh waagii ingiriisku dhulka yimi iyagu way raaceen annagu maanu raacin waa daraawiish baanu nahayn waataan ula dagaalanay koofli waataan ku leynay dhulkii dagaal ka dhacay dhulka yaga annagaa iska leh haddii aalahooda nima istaaba yihiin wiilashooda ha kaxayso hala tageen oo ha geeya wixii gaatamayo loo gaadho cinoosheeda ha tageen oo dhigooda hanaga kaxeeyeen oo rabadaan baa lagu jiraa oo yayna khalifin wiilashooda ha kaxaysteen hadday taa diidaan waxay ka helaan bay leeyihiin dhulkaa ka dhacana ilaah u maqal islaamka u maqal dhulkaa wixii ka dhacana jeegaanta ka mas-uula jeegaanland baa ka mas-uula sanag rag baan waadegnaayo jeegaanland maaha bela nooma dhaxayso heshiis baanu nahay laakiin jeegaanland nimanka la baxay jeegaanland oyna bixi madaxweyne uu yahay hadday dhulkay nooga bixin dagaal iyo xumaan baa noo dhaxa waana ka qaraar gaadhaynaa run baanu u sheegaynaa wiilashooda hala bixeen hadday diidaan ilaahooda ogow in iyagu diidaan rabbiyow wixii ka yimaadana ifyaa korba yaga qaba salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu